الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ليال waxaa wadankeena soo galay oo qof kasta uu ka walwalayaa cudur faafa oo la yiraahdo corona walaalayaal waxaad ogaataa markay dhibaatooyinka yimaadaan cudurrada ay dhacaan dhibaatooyinka ay dhacaan hawalwalin ha cararin mataqaana stress ku furmin waxa qalbiga waxaad ku xirtaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaad ogaataa wax walba oo dhaca ee dhibaato walba oo dhacda waxa qadaray oo keen Allah subhanahu wa ta'ala asagaan qaadi karo ma asaaba min musibatin illa bi idhnillah musiiba ma dhacdo illa Allah idinkiisa ku dhacda qalbigaaga Allah ku xir subhanahu wa ta'ala cabsida kale iyo walwalka iska daa Allah xaqiisa u bado Allah u toobad keen Allah jalla jalaaluhu tala saaro xaqiisa u bado waxa la timaada sidoo kale asbaabta loo baahan yahay in la yimaado oo sharciga ah midda maadiga ah iyo midda sharciga intaba inaad is ilaaliso sida culimada ay sheegeen dhaqaatiirtan ay sheegeen in wax way afxirka la xirto la kala fogaado nadaafada lagu dadaalo waxyaabaha dhaqaatiirta ay bixiyaan in la qaato sidoo kale in lagu dadaalo asbaabta sharciga ah oo diinteena ay sheegtay in badan anaga kamid ah naga qarsoon waxa kamid ah adkaaraadka sharciga ah in la yimaado oo nabiga nabar kaleey salaatu wasalaam nabigu wuxuu noo sheegay kaleey salaatu wasalaam adkaaraad qofka haduu la yimaado wax dhibi kara aysan jirin waxa kamid ah qofka markuu gurigiisa ka baxaayo haduu yiraahdo bismillaah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxa la leeyahay waa lagu ilaaliyay waa lagu hanuuniyay waa lagu kaafiyay shayaadiintu way ka dheeraanayaan wax walba waa laga kaafinayaa corona iyo wax kale waa laga celinayaa Allah baa ka celinaya subhanahu wa ta'ala qofka haduu akhriyo marka uu jiifanayo habeenkii labada aayad ugu dambeeyay suuratul baqara aamana rasuulu la yukallifu Allahu nabi wuxuu ku filayeen wax walba ka filayeen oo shar ah oo dhibaato ah Allah ta'ala saar subhanahu wa ta'ala ilaa qalbiga ku xir walwalka iska daa qofka uu ku dhacana waxa laga rabaa inuu sabro sabarka ajir fara badan laga helayaa khayr fara badan ku jiro qofka uusan ku dhicin waxa la rabaa inuu dadaalo Allah uu ku shukriyo subhanahu wa ta'ala adkaaraadka markaad akhrinayso waxa la rabaa inay ka tahay i'tiqaad iyo aaminsanaan adoo qalbiga Allah ku xiran subhanahu wa ta'ala Allah dhibka inuu qaadi karo adigoo aaminsan in Allah timaad ee laga baahan yahay hadda kora waxa la yiri nin Soomaaliya oo odaya baadiye ka soo galay markuu ka soo galay wuxuu soo safarsaday xoolo beledku yimid xoolihiisii uu gatay jawaan lacag ka buuxsaday xilligaasna waxa aad badnaa tuugada lacagta waa la iska dhacay dharka waa la iska furanay wadada uu ku socday horteeda waxa ku sugnaa Mooryan nin baa ka hor yimid markaas uu ku yiri wadada aan ku socoto tuuga ku jirto niyo iska ilaali markaas wuxuu yiri tuuga waxba ima sheegi karo lacagtiisina jawaan ku wata dushu ku sitaa waa dhaqaaqay tuugadii markii uu gaaray tuugadii way farxeen ninkan odaga ah oo lacag sita markii dareemeen way ku farxeen way isu baaqeen ninkii uu soo gaaro markaas wuxuu ku dhahay adar maxaa wadaa markaas wuxuu yiri lacagan wadaa markaas lacag wadaa ha dhig lacagtu uu dhigay lacagta markii uu dhigay way ka qaateen way la dhaqaaqeen lacagti adagii markii dhaqaaqeen tuugadii wuxuu yiri yaasinow saas kuma moodeynin yaasinow saas kuma moodeynin odaga macnaha subaxda uu soo akhrisaday suuratu yaasiin uu soo akhriyay suuratu yaasiin asaga waxa uu Allah tala saaranayo markaas wuxuu yiri yaasiinow saas kuma moodeynin saas naga ma dhaxaynin tuugada waxa kamid ahaa nin la yiraahdo yaasiin markuu maqlay yaasiin saas kuma moodeynin tuugadii midkii kamid ah wuxuu yiri ninkan inuu yaqaan laga yaaba inuu adeerkiisa laga yaaba inuu qaraabihiisa laga yaaba nimo lacagtiisa naga siiyo lacagtiisii uu soo celiyeen marka waxa la rabaa marka aad akhrinayso adkaarta oo quraanka aad akhrinayso in lillahi ka tahay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.